walaalnimada la sheegaya islaamnimadu ma timaado iyadoo quluubtu bugto oo caafimaad aanay qabin. waxaa loo baahan yahay xanuunada badan ee ilaahay kitaabkiisa uu ka warramayo, alghillu waalxaqdu waalbagyu waalxasadu, waxaasoo dhan in laga caafimaad qabo. soomaaliga inaanan kuba wada garan baa suurtagale. waa waxa laaliya wixii uur xumo iyo uur ku taallo iyo xaasidnimo iyo caloosha wixii dhibo oo dhan. qofka muslimkaa 3 meelood unbaa meel laga rabaa inuu deganaado. inuu ka hooseeya marnaba sharciguma soo dhoweynayo. martabad iyada waxaa gaadho oo qura dad gaaroo ilaahay doortay. waa martabatu liithaar. naftaada inaad nafta walaalkaa ka horu marisaa, iyadu waa martabad dad gaara uun. ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamay wayu'iruuna calaa anfusihim walow bihim wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. martabad labaad ayaa jirto oo ah walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato, an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik. martabad ka hooseysaa jira labadaaba, waa tan aynu ka warramayno. waa qalbigaaguna caafimaad qabo, at least inaad bukin, ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba, ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto. maanta masaa'il baa jira dadku ay fudaydsadeen, laakiin aynu midhaheedii hayno. maanta caalamulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan. ma aha inuu dadka ka xoolo yaryahay, ma aha inuu dadka ka caqli yaryahay, ma aha inuu dadka ka hubi yaryahay. waxaasoo dhan ma aha. ilaa naklyar weyban bay haystaa. laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa? waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan. dabeetana ninba nin rabo inuu reebo, ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo, midba miduu bagaleeyay jabkiisa. mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guulaysto, midhmidh uma guulaysto, koox kooxna uma guulaysto, dowlad ahaanna uma guulaysto. walidaalika caalamulislaami waxa yaalla waa uurxumada muslimiinta dhex taalla ayaa midba mid reebaya. meel kastoo dagaal ka dhacayo, gaalada qaar baa la safan, qaar baa dhan kale u safan, dhammaantood baa colaada iyo uurxumadu dhex taalla. dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo, oo soomaalidu ugu horeyso. soomaalidu way soo karta, dhib tiro badan baa soo gaadhay. in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taallay. hadda dad badan baa waxay leeyiin aan dib u midoowno, dib u midowno. haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa? su-aasha waa taa. haddaan laabtu caafimaad qabin miyaad midoobi karaysaa? haddii xanuunada tani, idan kelimatulmuslimiin inay midowdo waxaa ka horeeya caafimaad qabto. in dad wax wada yeelo kara ay noqdaan. qof kasta oo rabo inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadna waxaa ka horeysa inuu ku dhawaaqo in dadkan is-cafiyo oo is-saamaxo oo laabta bukaanka ku jira inuu soo baxo. qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan, qof qura xataa hadduu yahay, wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba, isagoo aan noloshiisu warwar iyo tiiraanya lahayn, isagoo aan laabtu huraynin. dadka badh baa waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila. maalinba warka yare uu soo maqlo ama fadhidu ku-dirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa, isagoo ciil qabu sariirtiisa tagaa. haddaba waxaan leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nebi ibraahim inooga warramay baryadiisii, fiirso, nebi dhan oo rabbi soo diro oo ilaahay baryaya, muxuu leeyahy? walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ilaahayow hayhoojinin buu leeyay maanta dadka la soo saarayo, maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin,
maalinta qofka qura badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu. culamadu waxay yidhaahdaan meesha tan markay joogaan waxay yidhaahdaan salaamatu alqalb waa laba shay. midna waa salaamatu alqalb laga qaado inaad shirki iyo xumo kale ku jirin, laabtaadu inay ka caafimaad qabto gaalnimo iyo qurunkeedo ilaahay tawxiidka aad u khaalis yeesho. midna waxay yidhaahdaan waa salaamatu sadri ah in makhluuqaadka siiba dadka mu'miniintii inay kaa nabad galaan oo aanad maxay wax laabxumo iyo dhib aanad hayn. walidaalika nebi ibraahim ilaahay qur-aanka markuu ammaanayey waxaa la yidhi waina min shiicatihi laibraahim id jaءa rabbahu biqalbin saliim. nebi nuux kooxdiisa waxaa ka mida baa ilaahay yidhi, dadka jidkiisii haya nebi ibraahim baa ka mid a. id jaءa rabbahu biqalbin saliim baa ilahay yidhi, markuu rabbigii ula yimid qalbi saliima. idan ayuha alaxiba, in qalbigaagu caafimaad qaba aday kuu tahay caafimaad qab, aday kuu tahay caafimaad qab. walidaalik aakhiro dadka jannada ku jira nicmaysanaya xanuunka ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay inay ka caafimaad qabaan. macnaheedu waxa weeyaan nicmadii jannada inaanu dhadhaminaynin qofka laabtiisu ay nooca ka tahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy haddaabay dhacday in dhibi jirto janno ilaahay u qoray kuwa laga siibaa buu noqonaya. wanazacnaa maa fii suduurihim min gil ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin. waxaanu ka siibnaa baa ilaahay yidhi wixii laabtooda uun xumo ku jiray, wixii xumo ku jiray. macnaheedu waxa weeyaan saaxibu nicma maaha qofka laabtiisu bugtaa, xataa fi dunya markaa kuma aha. haddaad rabto ahlu jannuhu siday u nool yihiin oo kale inaad u noolaato adoo adduunka jooga, noqon maxay mid laabtiisu caafimaad qabto. ahlu janna ilaahay wuxuu ku tilmaamay wahuduu ila ayibi min alqowl. war xunba ma maqlaan, halkan war xunoo badan baad maqli, laakiin waxaad u baahan tahay inaad laabtaada ka shaqayso.